إيكادي لو ذاك بلدتك كله موقال كان بليلا دقيسو دمان وين السلام يا إن شاء الله سلام كديم إن شاء الله تعالى وحندوني هل كان إن أرين عن كجهلو أرين إن كهلو أرين تا وأنا جاي سوق أرتي أنا أركي أرين تا فيديو أنا قاعد الله يحي موقال كان وايد قصة قران إن شاء الله وشيخ جن عيش يوهيان صودا قيس إن شاء الله جنة الله يديك اليوم فيديو أنا قاعد الله يحي أما موقال أنا قاعد الله يحي برتي ده تيك توك عن صودي جاي بقف قاتي قف كاسوسكم مجعوي داعي مختار سكم مجعوي وحن الله يحي فيوس بوروا إنه كهلو أما فيوس بكرة السنة يا لكن فيوس وحن كل يهاي مختاروا ميل خلدم بوكا علي فيوس كادرادين يسون ميل خلدم بوكا علي ما أهان ماشا فيوس كاد كرادين لهاد أم فيوس بدنا أتكهلي لهاد لكن وحن كاجد دقايا وإيجاد دقنين سفر عندك وشب هل يجد جارسي فرينتا وإيجاد دقنين داعي ومختار وحن كاجد دقايا فيديو aniga aan leeyahay ha soo qaadan afkaaga waxa doonta ka sheeg ka hadal afkaaga adiga iska leh shaqadan aniga uma joojinayno afkaaga waxa ku hadashay kaliya shaqadan uma joojinayno umadaan u hayno waan sii wada doonaa adiga iyo wixii kula mid ah hadiisaanay waxa say rabaan ay wax hadlaan shaqadan kuma joogsanayso laakiin waxaan kaaga digayaa fiidiyowga aad qaadanayso inaad joojisan kaaga digayaa hadaad joojin weysana لما واحد كهش أياد لهذا شيخ وعيش يقول صور دارتي مرضا بفيديو ويساعدان كسوح الله أما فيديو ولا يان سوقاته دقي فري باكدي عدونتا يا شيخ محادو قسمين ما يلا بيبي رفتا بركة هايه معاك قسمي هاتوا برهانك أياكوير قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين waxaana akhrinaysaa ma quraan baa misaaf kale haday quraan tahay haye suuradee bay ku jirtaa waasi ayadee noo tilmaan kuma aflagaadeen marka yaa laakiin da muqdisho anigu waan u soo socdaaba khamiistan u soo socda arkala la hawla wala quwwata illa billah ana gacan galay yaa wareer muqdisho armaadiga dhicisaana insha Allah sheekh waxaan ku sheegayaa walaalka anigoon cilaajiye ka hadlaynin ayaa walaalkaas ba fiidiyowga soo qaadanayay bal asagu way aflagaadeynayay adiguna way aflagaadisay naftan daaciga isku sheegaysa ee waliba wixii ustusnimada ay tahay baad igu tiri yaa qalbigayga adigu ma adan dhaxgalin anigu waxaan ku leeyahay cilaajo waa ka soo horjeeda waliba kuwa ruqiyo sharciya aan ahayn ruqiyo sharciya anagu waanu naqaanaa culimada sida u quraan saarana waanu garanaynaa walaakiin قرآن كان مالك دوّد أخرينسي فيديو كده واه بلوغو سو جواب ما حد أخرينسي من قرآن بوها مسيه ما حد سيقول سمينسا وهذا جاي دارني يا ما يلبي بالربطة مسواد السحر يسا مسواد الدل يسا مسجل بدل يسا يا جواب بدون ضل صار سبسكرايب براهي خير هالقصي وحدك دقات كفرح راهي قصي خصو البرحق صورتي في أنا ورركي قدام بيجي أجان كهذا بدينجا sida halka ku aragto waa sheekh darir oo sheegay waxa weeyaan inay xaraam tahay muuqaalada dadka Soomaaliyeed iska soo duubaan ee lagu tilmaamay inay shilin yihiin muuqaaladan oo aan wanaagsaneyn ayaa wuxuu ku tilmaamay inay xaraan yihiin oo waxa weeyaan lacagaha ka soo qaran aanay wanaagsaneyn sida halka ku aragto waxa weey xaaskii sheekh Shantaay oo soo hadashay sheekh Shantaay xaaskiisa markan muuqaal soo duubtay iyadoo sheegtay inuu $100 soo dirishay sidaad halka ku aragto waa hooyo Hinda oo ku baahan hooyo Hinda waxay kaaga baahan tahay wixii aad u awoodeen inaad ugu dirto hooyo Hinda oo ku nool magaalada Shishiga waxay soo duubtay muuqaal argagax lahaa oo halkan lagu baahin karin hooyo Hinda halkan kala xidhiidh waxaad u awoodaan halka ugu dir
maxaad u diri kartaa maanta ma tahay walaal muxsina oo waxa weye tabarucaadyada dadka ka hooseeya ku taakuleeya wuxuu u awoodo fadlan la xidhiidh adiguna wax wanaagsan ayaad helaysa waa markaagii iyo malabka gacanta geli maxaad u awoodaa maxaad ku soo qaadanaysaa fadlan la xidhiidh hooye oo halkaa kala xidhiidh oo waxaad u awooda maanta aday kuu baahan halkaa ku aragto waxa weeye ninkii sababta waxa weye loo xidhay ee yaabka lahaa muuqaal hore oo aan baahinin nin soomaaliyeed oo waxa weye dalka Canada lagu xidhay oo la dul dhigay 250,000 oo lacagta Mareykanka ah oo la qabtay oo waliba ciidamada Mareykanku soo gacan galiyeen oo waxa weeye ay xidheen sababtii loo xidhay waa adiga halkaa ku soo arka ninkan ayaa nin cadaana ka laacay war hore la arag runtii waxa weeyaan waxa weye dhib waxa weye ku haysta dadka qurbaha ku nool ayay ka mid tahay sida halkaa ku aragto waa fanaankii caanka ahaa ee Qamar Sugaanaha oo sheegay sida uu maayarmooga magaalada Hargeysa u dhisay inuu isaguna soo dhisi doono fanaaneen u gaara oo ka qayb qaadan doono qaybta fanka Soomaaliyeed sida halkaa ku aragto waxa weeyaan labadan sheekh oo waxa weeyaan baraha bulshada isku qabsaday sheekh daaci iyo sheekh waxa weeye rusheeye ama la yiraahdo shinni ciishiye oo waxa weeye horta sheekha labadan sheekh haddaynu xaq soornahay maanta waynu cadaalad qaadeen sheekh daaci iyo yaa khaldan iyo sheekh shinni ciishiye haddaba wararka ajaab kale faraqayn doonaa qoobkaaga shaaha soo qaado ila soco bilow ilaa dhamaad halkaa waxaad ku aragtaa waxa weeyaan xaaskii sheekh Shantay oo afka soo furatay oo sheegtay waxa weeye inay waxa weeyaan lacagtii yareedu siin jireen oo ka goostay sida dadku Soomaaliyeed ku barteen sheekh Shantay ayaa noqday sheekh xaqa dumarka aad ugu dheereeya oo waxa weeyaan waxa weeye arrimaha dumarka waxa weeye adigu si taakureena haday noqoto iyo isgarab taag iyo u doodidba haday noqoto inuu qayb ka geysto si kale hadayna u dhigno sheekh Shantay ayaa sheekhii ugu horeeyay ee baraha bulshada ka mamnuuca dad badan oo Soomaaliyeed oo reer Muqdisho inay soo duubaan muuqaalo aan wanaagsanin sida halkaad ku aragto waxa weeye fanaankii Qamar Sugaanaha oo sheegay inuu fanaanin u gaara ama sida xidigaha geeska oo kale uu soo dhisi doono fanaanin isaga u khaas haddaba markan waxa weeye labadan sheekh keebaa khaldan ninkaa sheekh la leeyahay shinni ciishiye oo aynu aragna isagoo muuqaalo baraha bulshada ku soo duubaya hooyooyin la rushaynayo oo waxa weeye lagu akhrinayo kulley isaga wuxuu ku akhrinayo siduu sheegayo sheekh daaci haddaba sheekh daaci baa saxan sheekh shinni ciishiye iyo sheekh daaci waxa saxan sheekh daaci sababtoo ah lama fahmayo sheekh shinni ciishiye wuxuu leeyahay waa halkii uu ku soo halqabsaday ee uu yiri sheekh shinni ciishiye ma wuxuu leeyahay shinni baromos wadaga arkaya ilaahay haynaga haya ee waxa weeyaan in wuxuu sheegay sheekh daaci waxa weeye inuu u soo dhaartay markii dambe uu dil ugu heshabay haddaba sababtaan u iri waxa khaldan sheekh daaci lama fahmayo sheekh shinni ciishiye wuxuu ku hadlayo runtii waxa ka jira dhulka Soomaaliyeed haday si kala u eegno meel ruqooyin ah oo dadka lagu daweeyo ruqooyinka quraanka dadka la saarayo waa la maqlaa balse wadaadkaasi wuxuu dadka ku akhrinayo runtii markaas run ka hadallo lama fahmayo haddii waxa weeye muuqaalkan uu macaalisagu daawado waxaan oran lahaa oo aan ku waanin lahaa runtii annagu dadka kuma xadgudubna balse xaqiiqa dhabaan ugu hadalnaa oo xaq soo baan yiraahdaa dadkana waanu xaq falla balse waxaan sheekhu kaa codsanaynaa dadka markaad quraanka ku akhrinayso waa in la maqlaa waxaad leedahay si aan cidiba ku qabsanba waa sababta uu wax weeye u qabsaday sheekh daaci oo ah wiil yar oo baraha bulshada 2 bilood gudahood caan kaga noqday oo dadkuna aad ay u jecel yihiin oo kale halkaa waxaad ku aragtaa Qamar Sugaane oo sheegay inuu soo wado dad wax weeye fanaaneen oo soo ururinayo oo reer Hargeysa ah fanaaneentan la ururinayo ayaa la garanay kooxda uu ka sameyn doona magac ay noqon doonto waxa jira Somaliland waxa weeyaan hidihiya dhaqanka xafiis hidihiya dhaqanka oo waxa weeye u soo shara qofkaas marka la xaqiijiyo inuu waxa weeyaan urursaday kooxdaas kulli kharashna uu bixinaya balse ninkii Qamar Sugaanaha oo marka ku shidanaya waxa weeye maayarmooge sida haddaan si kala u eegno maayarmooge waxa weeyaan maayar ay soo dooratay bulshada reer Somaliland oo waliba dhalinyarada aadka u yaryar ay soo doorteen sababta loo doortay ayaa lagu arkaya inuu yahay nin aamina oo dadkiisu ay aad u jecel yihiin
muuqaalo maanta baraha bulshada lagu baahiyey oo wadooyinka Hargeysa oo biyo yar ka furuurmeen ayaa waxa weeye lagu aflagaadeerayaa maayarmooyo oo la leeyahay waad kala shaxaaday wadooyinkii aad dhisaysay ma ninka dhulkii aan ogeyn ee wadooyinka sida u dundunsanaa waxa weeye marka Soomaali wax loo qabto cid wax ka sheegta waayimaysa maalmihii maayarmooga la dooranayay sida loogu ololoonayay waa tii la ogaa balse inagoo tusaale ahaan uga soo qaadanayna maadaama xaq soornahay runtii maayar soo maragayga Somaliland waa kii ugu wanaagsanay ugu aaminka ugu wanaagsanaa si kale haddaynu eegnayaa lagu aamini lahaa lacag 20 milyan oo doolarka Mareykanka oo laga ururiyay dad Soomaaliyeed oo waxa weeye daafaha adduunka ku kula nool oo ay u soo ururiyeen suuqii waaheen oo gubtay oo gacanta looga dhiibay maayarmooge maadaama dawladda hoose yahay guddiga suuqa waaheen waa sababta waxa weeye maayarmooge oo xilkeeda u hayo waa sabab aanu hal shilin aanu qof kale oo xaq darra aanu uga bixi karin si kale haddaynu eegno hay'ada waxa weeye dawladda ka madax bannaan oo ka mid ah hay'adaha Somaliland ayaa maanta waxa weeye waliba u dhiibay maayarmooge lacag 500,000 oo lacagta Mareykanka ah halka waxaad aragtaa waxa weeye sida wanaagsan ee magaalada Hargeysa uu dhisay maayarmooge waadiga arkay waliba si kale haddaynu sii eegno maalinka ciidka ee foodka inuu soo hayo ama maalmaha soo socda waxa weeye magaalada Hargeysa laga furi doonaa xaflad weyn oo loo qabanayo diyaaradda magaalada Hargeysa ee waxa weeye diyaaradii dagaalkii siyaad bare laga soo riday ee waxa weeye dadkaas anu kama hadla siyaasadaha iyo waxaase macnaha wuxuu baan leeyahay maayarmooge sida ay dadku waxa weeye u jecel yihiin iyo midmid baroor qurantay oo dadka ku dhex jirta oo marka dadka wax loo qabto waxa weeye dad qof walaalkii oo si xaq ah wax ugu qabtay oo aamina si kale haddaynu eegno maalinka suuqa waaheen gubtay waa ninkii maayarmooge intuu Hargeysa ka duulay halkaa Kenya ka garay lacag 350,000 oo doolarka Mareykanka ah isagoo sida Hargeysa ka soo degay haddaba maayarmooge waxa weeye waxaan oran karnaa waa ninka mustaqbalka ka noqon doona madaxweyne Somaliland waa nin sheegay in dadka Soomaaliyeed ay walaalayihiin oo aan waxa weeye qabiilista aan ahayn muuqaalo hore uu dumay maayarmooge ayaa baraha bulshada lagu baahiyay oo sidan oo kale u dhignaa inuu yiri magaalo ka mid ah magaalooyinka dhulka Soomaaliyeed ayay Soomaali oo dhan maalmaha ka mid ah isugu iman doonta tarow magaaladaasi teebay noqon doontaa muu shaacin balse waa hadal meel lagu quntay oo dadka Soomaaliyeed qalbigooda qof waliba oo meel ku